السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا ملك استعجوك توان سلامي الشيكة عاوة والشيكة أف عربي أف سومالي من نقول ترجمة إن شاء الله ولا لفر بدن بيقول أف سومالي نقول ترجمة والشيكة عجيب أو عبر لقاقاته عبر يادوين لقاقاته وحكون سبسنتها النبسية يظلمها إنه سنهين ظلمه واحد سهل أماها ظلمه واحد يادوحن وينو ترجمي مركا إن شاء الله بالشيكة اللي دقيسته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخواني. هذه القصة قصة حقيقية. نينكي وكاسلانتو كبلابي وحويري شيكدني وشيكو رن يشهد الله ويشهد الله إنها بجنب المسجد وأتكلم بهذه القصة الحقيقية. إلهينا الشهيد وإيجي هاي أنا شيكدن إذا كشيكينا إن المسجد كأكتشو منك وأنا شيكو رن مسؤول من بلدية أبي عريش، مسؤول كبير. وحكى الله يعني مسؤول أو كمسؤول حافظ كنت الله مقالة جدة السعودية كمسؤول أيو كشكينية. فالبسطة فمر على واحد يبيع تمر. مسؤول كسوحي من مال السوق ويه سوقه وحلقوا يبيع وحيعرف ربنا وحكم إذا تمرته مركو سوق أجمر سوقي نن مسكين أو تمرته يبيع أو ماشى فرديه أيو سوق أجمري ونيكي مسؤول كهذا سالة وكسوع كويري ككع ماشى أو تمرته هذا لكع أو قات تمرته ماشى لو ما أقوله. مر على الجماعة وقال لهم خذوا بضاعتكم من الشارع. nimankii kale ee moogtay meesha fadhiyay iyaga laftooda timirta iibinayeen ama waxyaalihii kale iyaga laftooda wuxuu ku yiri badeecadiina qaata oo kala kaca meesha waa nin mas'uul weeyday la hadli kara abtaad ايش خذوا روحوا كلهم اخذوا الا صاحب التمر nimankii oo dhan badeecadoodii way wada qaateen kulligood way qaateen badeecado kala duwan bay wateen meesha way ka carareen laakiin ninkii timirta iibinayay meeshiisii kama dhaqaaqin جلس فرجع اليه قال ماشي سو فريستي نيكي وصو نقضي مسؤولك بقى معناها وصو نقضي كيف كلهم اخذوا التمر اخذوا مقاضيهم وانت ما اخذت مقاضي wuxuu yiri war hada nimankii meesha fadhiyay badeecadoodii alaabtooda way qaateen adii maxaa ku fadhisay meesha فقال له يا اخويا والله اني مستني انا هون عندهم سياره انا ما عندي سياره انا مستني راعي الدباب شيء الحين wuxuu yiri walaal nimankani gaariyo ayay haystaan oo loo yimi laakiin anigu gaarigii ma sugaya lay keen lahaa ee alaabta lagu qaadi lahaa gaarina ma haysto فقال له لا انت معاند markaasuu ku yiri yaa may buu yiri run ma sheegaysid anaad igu caanidaysaa buu yiri waa gaari wada haysataa laakiin mucaanid baatay macna aniga igu caanidaysaa anaad igu xumaynaysaa فركل التمر برجليه timirtii uu ninkii miskiinka ah ibinayay mas'uulkii muxuu sameeyay timirta gabigeeda buu laaday kartoonkeedu buu laaday فنثربوا على الرصيف timirtii waxay ku daadatay dariiqi shaariiciisa ugu daadatay فالرجال لا حول ولا قوة إلا بالله استغش على حقه لكن ما رد له ninkii miskiinka ahaa ee timirta laga daadiyay wax uu ku hadlu garan waayay uu iska aamusay لا حول ولا قوة إلا بالله استغش على حقه لكن ما رد له خلاها في نفسه قال لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل ninkii miskiinka ahaa wax kale ma oran wuxuu yiri la hawla wala quwwata illa billah حسبي الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون wax kale ma oran inta kale buu yiri الرجال هذا قال له أنا حارجع مرة ثانية إذا لقيت عادك واقف حيحصل لك شيء مو كويس mas'uulkii keer masin ninku wuxuu yiri waan ka tagay hadaan soo noqdo adiga oo meeshii fadhiya isilaali wax kugu dhici doona wad ogaan doontaa waa u hanjabi أقرمك حصل لك شيء مو كويس wuxuu yiri qaraaman ka qaadaya lacag bal laga qaadaya wax xun ba kugu dhici doona فمرة فدق برجليه في الرصيف اللي في البلدية دق برجليه في الرصيف سبحان الله ninkii baladiyaha mas'uulka ahaa markuu ka tagay ninkii uu xogaa socday sibirka meesha sibirka dariiqi u marayay lugtuu meel ku dhuftay فوجع شوي قال لا هذا حاجة بسيطة wuxuu yara dareemay xogaa xanuuna markaas wuxuu yiri waa iska basiid wax dhibaato ma taas xanuunka soo ma aha روح البيت يتألم gurigii markuu tagay ninkii mas'uulka ahaa wuxuu dareemay xanuun aan caadi ahayn buu dareemay xanuun cajiib uu dareemay من هذه الدقة في رجله فقال له أخويا أرجوك يا أخويا أن تذهب إلى المستشفى أنا تعب walaalkii ku yiri walaal guriga soo joogo mas'uulkii walaalkii walaal lugta aad ba laga hayaa maanta meel baan ku dhuftay aad ba laga hayaa si degdeg ah dhakhtarka ii geeya كاكلني wuxuu lugtii baa cuncunaysa buu yiri فراح بالمستشفى مستشفى عام في جدة فكشف عليه فقال wuxuu geeyay dhakhtar ku yaala magaalada Jeddah ayuu geeyay si lugtii waa loo baaray عندك غرغرينة داخل رجلك تاكل رجلك سبحان الله wuxuu ku yiri عندك غرغرينة يعني waxa laga helay jidhkaaga waxa ku jira wax la yiraahdo غرغرينة waxa weeye waa cudur ay bacteria keenta ingiriiska waxa lagu yiraahdaa gangrene waliba gacmaha iyo lugaha bay badan ku dhacdaa waxa weeye sababtuna waxa weeye dhiigii baanan gaarin meeshii loogu talagalay baanan gaarin marka uu qurmaysaa meeshii marka waxa weeye waa in la jaro dhakhtaradu way jaraa qof gangrene markay marxaladda ugu dambaysa gaadho waa la jaraa فقال له أخوه
أنا سأذهبك مستشفى الرياض التخصصي. walaalkii wuxuu ku yiri wareedhe meeshan inaga daa waxaan ku geenayaa dhakhtarka specialist ah mustashfa riyaad at-takhasusi. فراح بالمستشفى التخصصي فكشف عليه قال له عندك غرغرينة تاكل رجلك داخل. markuu dhakhtarkii specialistka u tagay waxaa lagu yiri wareedhe gargarina qabtaa lugtaaday cunaysaa. فقصوا له 4 الصبابع حقه اللي قدام. marka afartii farood ee lugta afarta farood ugu horeysa ayaa la jaray bal sheekadu si u socotaa waa cajiib weey wallahi subhanallah. قصوها نهائيا لا إله إلا الله. فبعد ما قصوها فعاد الألم يتعلم. markii la jaray afartii farood haddana mar dambe wuxuu dareemay xanuunkii ku soo noqday isla lugta lafteedii. يزيد الألم عاد يعني wuu sii batay xanuunkii ku leeyahay. رجله. فراح البيت ورجع قال له يا أخويا رجلي عادها تألمني. markuu guriga ku noqday wuu ku yiri walaalkii walaal lugtii wali way xanuunsan maxaan sameeyaa. فرجع إلى الدكتور نفس الدكتور التخصصي. wuxuu ku soo noqday dhakhtarkii specialistka laftiisu ku soo noqday mar dambe. وشوف يكشف عليها قال له لازم نقصها نهائيا. dhakhtarkii markuu arkay buu yiri xal kale ma laha waa in la jaraa lugta waa in la jaraa. نقصها من فوق. من هنا. نعم. waxaad ka jaraysaa lugta ilaa inta ugu dambaysa ama inta ugu sareysa lugta oo dhan la jaro buu yiri kullu la jaro yani lugta oo dhan wuxuu yiri hala jaro ilaa inta ugu sareysa hala jaro waa lugtii oo dhan way macnaha. والله العظيم قصة حقيقية. ninkan waa dhaartay wuxuu yiri wallahi alcadiim qisa xaqiiqiya wallahi waa dhaartay buu yiri waa run sheeko run oo dhacday. فقص رجليه نهائيا. lugtii oo dhan waa la jaray subxaanallah. قصها من فوق. فقال له يا أخويا الله يرضى عليك أنت ظلمت حد. marka ninkii buu weydiiyey ninka lugta laga jaray baa la weydiiyey warheedha walaal buu yiri walaalkii baa weydiiyey wuxuu walaal ma cid baad dulmiday maxaad samaysay waa maxay maxaad samaysay bal xusuuso. فكان تدور على راسه قال له نعم. marka ninkii lugta laga jaray wuu fikiray madaxiisa ugu wareegtay fikradii markii dambe yiri ha waxba xusuustay. صاحب التمر. ninkii timirta lahaa buu yiri walla waa ninkaas. قال له ماذا عملت له على التمر. wuxuu yiri maxaad u samaysay ninka maxaad ku samaysay ninka saaq ku habaaray macnaha u jeedaa maxaad ku samaysay. قال لي والله العظيم إني آذيته. wuxuu yiri wallahi waan dhaartay buu ninka dhib baan u keenay buu yiri dhib baan u keenay ninka. رحت البسطة قومتهم كلهم راحوا بقوا هو جالس. wuxuu yiri meesha suuqii lagu iibinayay badeecada ayaan tegay dadkii waa ku qeyliyay dadkoo dhan way tageen isagu bas ka fadhiistay meesha sheekadii uga sheekiyay. فرجعت إليه فقلت له مالك ما أخذت حقك. waan u soo noqday buu yiri waxaan u qaadan weyday timirtaada dadkoo dhan way tageen. التمر حقه برجلي. markaasaan lugtiisiiba timirtiisiiba laad intaan sanduuqii kartoonkii ku jirtay timirtu baan laaday timirtii baan ka daadiyey. وكل التمر حقه برجله. فقال له فقال timirtii waa ka lugtu ku laaday timirtii ninkaa miskiinka u iibinayay. الله يا أخوي اركب ركبوا السيارة برجلة واحدة برجل. subxaan allah markuu sheekadaa dhameeyey gaarigii baa la saaray walaalkii baa yiri warkaale kaale gaariga soo kor wuu caawinay miskiin lug dhanba laga gooyey wuu caawinay walaalkii gaarigii buu saaray lug keliya walaalkii baa qaaday ninkii lug keliya la gaarigu saaray. أحد ركب مع السيارة قال له لازم ندور لهذا الإنسان. wuxuu yiri keen gaariga ku saaray iminka waa inaynu ninkaa insaanka miskiinka aad dulmiday waa inaynu ninkaa helaa. ندور له. فذهب إلى البسطات وراح سأل عنه. meeshii suuqii buu tegay badeecada lagu iibinayay ninkii buu raadiyey. أبغى فلان. السلام ورحمة الله. salaamu calaykum war ninkaa ma taqaanin. قال له أبغى فلان اللي كان صاحب التمر هنا. waxaan rabaa ninkii miskiinka ahaa ee hebel timirta ku iibin jiray ninka ayaa garanaya. قال له في قرية كذا كذا. wuu u sheegay inuu ninkaa waxaad ka helaysaa tuulada hebla la yidhaahdo. فذهب هو أخوه إلى القرية وسألوا عنه. isaga iyo walaalkii baa tegay tuuladii ninkii baa la raadiyey. وقال له على الباب فدق عليه. waa loo sheegay gurigiisii albaabkiisuu garaacay ninkii miskiinkaa baynu ka hadlana baa la raadinaya ee timirta lahaa. قال له السلام قال له عليكم السلام. قال له تعال. قال له تعرف هذا. قال له نعم هذا أعرفه. wuu salaamay salaamu calaykum salaam kasuu yiri ninkan ma taqaana wuxuu yiri ninkan waan aqaanaa. اللي عاد حارقني في جوفي. قال لي عاد حارقني. waa garanaya buu yiri ninkaasuna xanuun yani xanuunku ii keenay weli waa xusuusanaya buu yiri. صلى على النبي. قال له أخويا رحت بالمستشفى والآن قطعنا رجليه. wuxuu yiri niyo weedhe walaalkay dhakhtarkan hadda ka nimi lugtii oo dhan baa laga jaray. فالعلم عاد فيه. weli xanuunkii wuu hayaa isagoo lugtii oo dhan laga jaray xanuunkii weli wuu hayaa. فالله يستر عليك إنك تسامح. ilaahay ku asturo buu yiri walaalkay cafi walaalkay saamax arrin weyn baa ku dhacday walaalkay saamax wajiga ilaahay u saamax. فقال يا رب إني سامحته
الله يسامحك في الدنيا والآخرة، الله يسامحك ويبعد عنك الأذى والشر. markaasuu yidhi yaa rab buu yidhi ninkii miskiinkaaba duceeyey yaa rab buu yidhi ilaahow shaahidiga noqo ninka waan cafiyey ninka adduun iyo aakhira waan cafiyey ilaahow xanuunka ka qaad subxaan allah. فقسم بالله العظيم إن هذا الرجال فبكى فقال والله العظيم العالم راح. wuu dhaartay wuxuu yidhi wallaahi markii uu ninkaasu duceeyey oo gacmaha kor u taagay oo ilaahay ka ducaystay ilaahu ninka xanuunka ka qaad wuu dhaartay wuxuu yidhi isla markiiba ninkii xanuunkii hayay markii lugta la jaray intii sii socotay xanuunkii waa istaagay buu yidhi markiiba. توقف العالم. توقف الآلام wuxuu yidhi xanuunkii waa istaagay. سبحان الله. وأنا أقول يا ناس لا أحد يظلم الناس. سبحان الله wuxuu yidhi dadkow anna waa idinla talinayaa dulmiga iska ilaaliya dulmiga bani aadanka iska ilaaliya. لا أحد يأخذ حق الثاني. dadka xuquuqdooda ayaan la qaadanin dadka xuquuqdooda ayaan la dhicin ninka hadda dadku waaninaya. لا أحد يشيل عرض الثاني. war dhulka war qofka qof dhulka qaado is ilaali dhul yaan la kala qaadan. ولا أحد يقول فلان كذا وفلان كذا وهو بريء. dadkana waxba ha ka sheegin horan hebel waa kaa hebel waxaasuu sameeyey waxaa isagoo beri'a qof beri'a oo miskiina dulmiga laga ilaaliyo. يا ناس اتقوا الله في أنفسكم إن الله يراقبنا جميعا. wuxuu yidhi ilaahay ka cabsada ittaqu llah fi anfusikum ilaahay waa ina arkaa allah yaraaqibna jamiican. استغفروا ربكم وتوبوا إليه وصلوا. ilaahay u toobad keena tukada. وابتعدوا عن المحرمات. muxaramaadka waxa xaaraantana iska ilaaliya. ابتعدوا عن الدخان وابتعدوا عن الحشيش. ka fogaada sigaarka oo ka fogaada xashiishka waxa drugska daroogada. ابتعدوا عن المسكرات وابتعدوا عن ما حرم الله. wax kasta oo maaragtay sida khamriga oo kale iyo iska ilaaliya iyo waxa moogtahay ilaahay raalli ka ahayn. ربي راقبنا جميعا. ilaahay waa ina ishuu inagu hayaa subxaana wa tacaala waa ina eegaya ilahay subxana wa tacaala. لا تظلم أحد تقول فلان يسوي كذا وكذا وهو مظلوم. weligaa iska ilaaliya maa tudlum axad buu yidhi cidna ha dulmin qof aan waxba samayna oran waxaas sameeya. والله العظيم ربي راقبنا جميعا ما ياخذ إلا ربي حق المسكين. ilaahay waa ina eegaya dhammaanteen ilaahayna qofka miskiinka xaqiisa waa u keenaa. يا جماعة أقسم بالله العلي العظيم هذه القصة حقيقة وأنا عند بيت الله. ninkii markan uu dhaartay wuxuu yidhi ilaahay waa ku dhaartay sheekadan waa sheeko run ah guriga ilaahayna waa hortaagana waana dhaartay. إذا ما أنتم مصدقوني فأسألوا محمد أبو جبل. wuxuu yidhi qof dee dadku u sheegayey u sharaxayey asxaab buu u juubayey wuxuu yidhi haddaydan rumaysanayn u taga ninka la dhaho maxamed abu jabal. في الجامع بالصبا في الجامع الجمعة اللي فاتت. oo jimcihii hore ayuu meesha joogay. ربي يحفظكم ويستر عليكم. جزاك الله خير. والله يوفقك زكي وربي يحفظك ويستر عليك ويفرح الله امك ويفرح اهلك واخواتك ان شاء الله وتتجوز وتحصل لك عيال ان شاء الله تفرح بهم ان شاء الله. الله يوفقك زكي. جزاك الله خير. ninkii waa duceeyey ducuu ku dhameeyey meesha. marka dulmiga ilaahi subxana wa tacaala ayaa xarimay. dulm الطغيان waad maqasheen kelmadda طغيان waxa weeye waa marka uu dulmigu xad dhaaf gaaro weeye طغيان. طاغية كلمة طاغية ومقشين مثلا قفلوا لي بي حكم ومثلا دولة كمسؤول والله يرادون كسوا طاغية وحكست إسقى قادرية وحوربو سمينية ودتكو ربو حسينية طاغية طغيان سياسي حكمك أما سياسة دا أما ماركتي ود قفك أو ود ماركتي هيستا دولة حكومة ما أوجا إلى فتنة تاعي وفتنة كبيرة وي مركو قفكو حاكم نقضه وفتنة وي خلفدي رضوان الله عليهم خلفدي خلفاء الراشدين مركز كنتي مثلا عمر بن الخطاب وكذا عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق رضوان الله عليه يكوي كلا خلفدي كلا ويكبق جرين الى السلطه اما باوركا خلافه اللي سيو يكبق جرين ومد كاستهبين كيو الماركتي وحسابته جري معد بان دلمي معد بان waxa ku sameeyay habeen iyo maalin laanu way garanayaan waa lagu weydiin doonaa maalinta xisaabta dadka ugu xisaab badan waxay dadka moogtahay mas'uulka مثلا اما قاضي هالنقضه اما حاكم هالنقضه اما بوليس عسكري هالنقضه مسؤول ملكه اما هالنقضه قف ادو مسؤول حتى والدك كلكم مسؤول وكلكم راع عن رعيته مركب مسؤوليه وي ايضا فر بدنو قرانك بو الله سبحانه وتعالى ku adkuray dulmiga xadiis badan baa jirta oo ku sharaxaysa dulmiga waxaana ugu caan ah حديث كقدسي ونبي صلى الله عليه وسلم يري وأنا حديث عان أوليقان يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إلهي بعبادك يسكوله أنا أبا نفتي لك حرم الظلم معناها أنا أبا بعدنا الظلمين مركا يكون نحن ناس ظلمنا فلا تظالموا هو حديث عجيب ويا وهذاك الدولة ضعيف أو فقير
ودولة كله waxay ugu deeqeen lacag ama cunto ama wax ay ku caawinaan waxa laga yaabaa wixii ay dawladdaas siisay in ninka ka mas'uulka ah meesha inuu isaga iyo dadka la shaqeeya ama dadka u dhow ama dadka ahladiisa inuu kala qaybiyo waana ka dhacday dawlado fara badan oo wax lagu caawimay in ay ragii mas'uuliyiinta ahaa ee lagu talagalay inay waxa u qaybiyeen dadka masaakiinta ee faqiirka ah inay iyagii bilaqaysteen taasuna waa dulm weyn marka wixii uu qaadanayay isagu mooga in ilaahay ishiisu ay aragto mooga waxa ka saa dad bilaqaysanaya dad masaakiina guryahooda dawlad fara badan bay ka dhacday dad masaakiina dagaal baa dhacaya xarb ahliya dhacaysa wala isdilaya isku kacaya dad masaakiin ah oo guryahoodii xoog laga qaado arkaysa oo waraqo been la samaystay oo maxkamad loo tago leeyahay guriga anigaas kale qofkii guriga hana waa nool yahay oo 24 saac wuxuu ku wareegaya maxkamada kii guriga qaatayna uu arkaa warqad been u sameeyay laakiin ma arko inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala isha ku hayo beero waxa ka sadad laga bilaqaystay beero ama xoog laga qaatay waa tuqyaan yani taaqiya xoog nin moogtay mas'uul ah xoog ka qaadaya waxna ma oran kartid waxa weeye bas maxkamadda adduunka hadii wax ku tarin maxkamadda akhro weeye maxkamadda akhro ka duwanta maxkamadda adduunka waxyaalo badan baa jira oo la isku dulmo lacag noqoto qof lacag xoog ka qaaday hadda ninka miskiinka ee timirta meesha ku iibinayay ninka waxa laga yaabaa inuu caruur yar far badan haysto oo uusan meel kale uu maaragtay macaash uusan meel kale ka helin oo ninka mas'uulka ah awood buu sheegtay xoog buu sheegtay xoogii uu sheegtay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ninkaas markuu ducaystay waa aragtay wax ku dhacay waa nafsi marka awood isku arka laakiin ma arko awoodda ilaahay oo ma muuqato waa kayn dhalay awoodda ilaahay ma arko laano qalbigu kayn dhalay laano qalbigiisa waxba arag subxaanallah Soomaalidu waxay oran jirtay nafsiga diin baa qaada macnaha waa aad buu gaabanaya diinku macnaha nafsigu waqti dambe ayaa laga yaabaa nafsiga dhaco laakiin hadda waxay yiraahdaan nafsigu waqtiga aynu joogno dabeel baa qaada nafsiga dabeel baa qaada bal ninkaasu markuu duceystay isla markiiba subxaanallah ilaahay waa u istijaabay ducadiisii marka dulmiga la iska ilaaliyo waa muhiim weeye ilaahay ishiisa ayna aragta marka insha Allah videoga dawata la share gareeyo walaalihiin